bilowga filimka waxaana la tusayaa gabar wariyaa oo la yiraahdo Rio taasoo hadda booqatay goob laga dhisayo dhulka hoostiisa oo ku taala Denmark meeshaana waxay u timi inay dukumiinti ka samayso shaqaalaha ka shaqeeya goobtan haddana wiishka ayay raacday si ay u gaarto dhulka hoose markay meesha gudaha u gashana mid ka mid ah shaqaalaha ayaa siiyay qalabka lagu neefsado sababtoo ah waxa waa kamaysan jirin meesha sidoo kalena wuxuu ayada u sheegay hadday wax qaldamaan inaysan cabsan intaa kadibna Rio iyo koox kale oo ka mid ah shaqaalaha ayaa meesha gudaha u sii galay tuunalkan intay hadda wada joogeenna waxay wadaageen xoogaa macmacaana iyo kafee ayagoo cabbaar wada sheekaysanaya intaa dabadeedna waxay bilowday inay meesha ku wareegto ayadoo sawirro ka qaadaysa sidoo kalena shaqaalaha waxay weydiinaysay dhowr su'aalood oo ku saabsan shaqadooda iyo qoysaskooda haddana waxay ogaatay shaqaalahan inay ka kala yimaadeen adduunka oo dhan dhammaantoodna waxay ku hadlayaan luuqado kala duwan meeshaanna waxay ka ogaatay shaqaalahan inay qoysaskooda ka maqan yihiin muddana aysan arag ayaga arrintaa markay ogaatana xumaan ayay dareentay sidoo kalena waxay ogaatay shaqaalahan inay ku jiraan xaalad xun muddo kadibna gabadhan waxay la kulantay Evo kaasoo ahaa ninkii mas'uulka ka ahaa mashruucan haddana asaga iyo mid ka mid ah shaqaalaha oo la yiraahdo Bahraan ayaa hagaajinaya tubada hawada intaa kadibna Evo gabadhan waxay ka codsatay inuu ayada u kaxeeyo goob kale si ay u ogaato siday u socoto shaqada meeshan Evona wuxuu u ogolaaday arrinta meesha ayuuna u kaxeeyay laakiin wuxuu u diiday inay meesha gudaha u gasho sababtoo ah qatar ayaa ka jirtay oksijiintuna aad bay ugu yarayd goobta ayadoo ay taasi jirtana Rio waxay halkan ka codsatay in loo ogolaaday inay aado meel walba oo ka mid ah goobtan intii lagu guda jiray qolkaana waxay la hadlaysay nimankan sidoo kalena sawirro ayay meeshan ka qaadaysay intuu wada sheekaysigan socdana Evo wuxuu sheegay injineeradu markay meeshan dhisaayeen inay adeegsadeen kombiyuutarradooda iyo laysar laakiin weli wuxuu ayada u diidanaa inay tagto Qatarka sababtoo ah meesha waxay ahayd goob khatar badan muddo yar kadibna xibin ka mid ah shaqaalaha oo lagu magacaabo Andaryan ayaa halkan yimi Evona wuxuu kula dooday gabadhan wariyaha in la geeyo qolka weyn sidoo kalena Rio wuxuu u sheegay qolka inuu yaalo 2 haan oo oksijiina waxayna ku filan tahay qolka oo dhan intaa dabadeedna wuxuu xirtay qalabkiisa gabadhanna wuxuu u kaxeeyay qolka markuu meesha geeyana wuxuu u ogolaaday inay indhaindhayso goobta sidoo kalena waxaa loo ogolaaday inay kormeerto meesha ayadoo loo marayo kaamirada iyo daaqadda intaa kadibna Andaryan oksijiin ayuu ku shubay gudaha meesha Evo iyo Bahrainna waxay sameeyeen bareshar ku filan intaysan gudaha u galin qolka intii lagu guda jiray hawshaana Bahrain gabadhan wuxuu tusay qabowga ka jira meesha arrintaana waxay ka dhigan tahay heerkulka cadaadiska ee qolka dhexdiisa inuu yahay mid aad uga sarreeya badda hoosteeda markuu cadaadisku sii kordhay ilaa xadna Evo isla markiiba wuxuu gudaha u galay qolka wuxuuna bilaabay inuu kormeero meeshaanna wuxuu ka ogaaday katarka lambarka 3 inuusan shaqaynayn sidaa darteedna Andaryan wuxuu weydiistay inuu si degdeg ah u xalliyo arrinta intaa dabadeedna wuxuu xasuusiyay arrintan inay tahay tijaabo oo kaliya haddana intaan tijaabadan ku jirno ma ku qasbanin inaan meesha gudaha u galno si degdeg ah si kastaba ha ahaatee Evo hadda wuxuu ku adkaysanayay in la hagaajiyo katarka sababtoo ah shaqadooda ayaa ku xirnayd wadahadalkoodanna si lama filaan ah ayuu u go'ay sababtoo ah Andaryan wuxuu maqlay alarmiga digniinta arrintaana waxay la micno tahay gaas suna in lagu shubay tuunalka kahor intuusan fahmin xaaladda meeshan ka jirtana wuxuu dareemay in gaasku uu ka buuxsamay meesha arrintaana waxay keeni kartaa inuu meesha dab ka kaco isla markiina sida ugu dhaqsiyaha badan Rio wuxuu ku amray inay aado qolka gargaarka degdega meesha ayaana ku badbaadaysaa adiga si kastaba ha ahaatee maadaama ay argagaxday gabadhan hadda ma aysan garanayn waddo ay meesha u marto sidoo kalena gabadhan waxay ka baqaysay inay ku dhex dhunto meeshan Andaryanna isla markiiba wuxuu xiray albaabka qolka sidoo kalena Evo iyo Bahrain ayaa xilliga ku jiray qolka wax yar kadibna nalalkii qolalkan ayaa si lama filaan u damay nalalkuna markuu soo laabtay waxay isku dayday inay banaanka ka eegto daaqada yar laakiin waxba kumaysan arkin meesha qolka gudihiisana mugdi ayuu ahaa xaaladan qasan intay ku jirtay Riona waxay eegtay daaqad kale meeshana waxay ku aragtay Evo iyo Bahrain isla markiina waxay weydiiyeen sida ay arrintan ku dhacday waxayna u sheegtay Andaryan inuu halkan uga tagay ayada si uu u badbaadiyo balse hadda waan waayay asaga intaa dabadeedna labadooda gabadhan waxay u sheegeen inay isdejiso goordhowna waa lagu caawin doonaa adiga intay gabadhu meesha joogtana waqti badan ayaa sidaa ku dhaafay heerkulka qolkaana wuu sii kordhay arrintaana waxay keentay Rio inay aad u dhidido wax yar kadibna hadda waxay iska saartay
xiray qaybo badan oo ka mid a dharkii ay wadatay. Si kastaba ha ahaatee xaaladdu way ku sii adkaatay heerkulku markuu gaaray 50 darajo. Markay u dulqaadan weysay kulaylkaana waxay garaacday daaqadda si ay caawinaad u hesho. Isla markiina Ivo wuxuu ayada u sheegay inay furto albaabka si ay ugu timaado qolka ay joogaan ayaga. Intaa dabadeedna Rio waxay isku dayday inay sidaas samayso, laakiin waxay ogaatay inaan si fudud loo furi karin albaabkan. Intaa dabadeedna waxay eegtay hareeraha meeshan, isla markiina alwaax ayay soo qaadatay. Intaa dabadeedna waxay bilowday inay ku garaacdo albaabka. ugu dambayntiina waxay ku guulaysatay inay furto albaabka. Isla markiina raggii kale waxay isku dayeen inay meesha ka soo saaraan ayada. ugu dambayntiina way soo badbaadiyeen. biyo ayayna cabtay muddo kadib. Isla markiina waxay dhammaysatay biyaha sababtoo ah haraad daran ayay qabtay. markay xoogaa nasatana raggan waxay weydiisay meeshan inay ka bixi karaan iyo in kale. Baxraynna sideeda oo kale wuxuu u muuqday inuu cabsanayo. arrintaana xaaladooda waxay ka sii dhigaysay mid aad u adag. si kastaba ha ahaatee Ivo labadooda wuxuu u sheegay inay isdejiyaan si ay u wada qaybsadaan oksijiinka yar ee meeshan. sidoo kalena Rio waxay asaga weydiisay sababta ay meeshan u joogaan oo ay u bixi la'yihiin. asagoo u jawaabayana Ivo wuxuu u sheegay in cadaadiska qolka banaankiisa uu yahay mid aad u sareeya. haddii aan furno albaabkana arrintaa waxay noo keeni kartaa inay goobtaan qaraxdo, sidoo kalena aan u dhimanno oksijiin la'aan. bannaanka meeshaanna hadda waxaa yaala qalab caafimaad, laakiin aad bay u khatar badan tahay inaan meeshaa tagno. intaana waxaa dheer xitaa sahaydeenni ayaan meesha uga soo tagnay annaga. haddana waxa ugu fiican oo aan samayn karnaa waa inaan sugno intay wax isbeddelayaan. wax yar kadibna taleefanka Rio ayaa soo dhacay. kooxduna aad bay u farxeen markay arrintaa arkeen, ayagoo u malaynaya inay caawinaad heli doonaan. si kastaba ha ahaatee digniin ayay ahayd arrintan si ay gabadheeda uga soo qaaddo iskoolka. intaa dabadeedna saddexdooda waxay bilaabeen inay ka wada hadlaan qoysaskooda. Riona waxay ayaga tustay sawirrada iyo muuqaalada gabadheeda yar. intaa kadibna qof kasta markuu hurdaayo fikrad ayaa ku soo dhacday gabadhan, ayadoo isku dayaysa inay dib ugu laabato qolka caafimaadka. intay hawshaa wadana Ivo ayaa ku soo kacay, isla markiina been ayay u sheegtay ayadoo kule musqul ayaan rabaa. intaa dabadeedna wuxuu ka caawiyey inay gasho qol qaasa, isla markiina albaabka ayuu ku xiray. intaa kadibna waxay isku dayday inay albaabka hoos ka soo xirato ayadoo bool ku xiraysa, waxayna rajaynaysay inay meesha ku jiraan Ivo iyo Baxrayn. sidoo kalena qalab caafimaad ayay meesha ku qarsanaysay. si kastaba ha ahaatee qorshaheedii ayaa fashilmay. Ivona si degdeg ah wuxuu u fahmay inay qalab caafimaad qaadatay, sidaa darteedna hadda wuxuu furay albaabka. intaa kadibna meesha waxay ka heleen qalabka lagu neefsado, kaasoo ay gabadhan meeshan ku qarsanaysay. maadaama hadda Ivo uu ka xanaaqay khiyaanada ay ku samaysay ayagana, wuxuu bilaabay inuu la dagaalo gabadhan. isla markiina si lama filaana nalalkii ayaa u tegay. haddana markuu oksijiinta gacanta ku dhigay, Ivo Baxrayn wuxuu ku amray in naagta uu meesha ku xiro. haddana maadaama ay kooxdan heleen qalabka neefsashadana, Ivo wuxuu go'aansaday inay meeshaan isaga tagaan si ay u samata baxaan. intaa kadibna saddexdooda waxay yeesheen dood gaaban oo ku saabsan cidda baxaysa, maadaama aysan hadda isku kalsoonayn. Baxraynna hadda wuxuu u baahnaa inuu sii noolaado, sababtoo ah qoyskiisa waxaa loo haystaa lacag badan. ayagoo ay taasi jirtana Ivo si unbuu u maray inuu asaga ku qanciyo inay meeshaan ka samata bixi doonaan. markuu isku dayay inuu furo albaabkana, koox samata bixiyayaala ayaa ka soo muuqday bannaanka. arrintaana waxay farxad gelisay kooxdan. isla markiina kooxdan waxay isku dayeen inay meeshaan furaan si ay dadka goobtan uga soo badbaadiyaan, ayagoo u hoggaansamaya tilmaamahana. Ivo meeshaan wuxuu ka sii daayay cadaadiska gaaska si qolka uu u noqdo hawo la'aan. intay meeshaan ku sugnaayeenna Rio Baxrayn waxay weydiisay sababta qoyskiisa loogu leeyahay lacag badan. meeshaanna wuxuu ka sheegay in la afduubtay asaga sannado badan ka hor. arrintaana waxay qoyskayga ku qasabtay inay amaahdaan lacag badan. qisadan murugada leh markay maqashay gabadhaanna waxay u ballan qaaday inay caawin doonto asaga, sidoo kalena ay si wada jira goobtan uga bixi doonaan. intii lagu guda jiray wakhtigaana qarax weyn ayaa ka dhacay qolka bannaankiisa, sidaana qaraxa wuxuu ku gallaaftay dhammaan nolosha samata bixiyayaasha. sidoo kalena
qaraxa wuxuu keenay heerkulka gudaha qolkan inuu sare u kaco waxyaabihii meeshaan yaalana waxay bilaabeen inay dhalaalaan intaa kadibna saddex ka mid a dadkii meesha joogay waxay aadeen dhanka qolka weyn markay xaaladdu ka sii dartana waxay ku qasbanaadeen inay dib u soo laabtaan meeshaan markay yimaadeenna xaaladoodii way sii xumaatay meel kalena Bahrain wuxuu rabay inuu caawiyo Rio laakiin Ivo ayaa u yimi oo meesha ka soo kaxeeyay labadoodana si kastaba ha ahaatee waxay ku guuleysteen inay meeshaan isaga baxaan laakiin si lama filaana waxay uga soo dhaceen meesha arrintaana waxay keentay Ivo inuu soo gaaro dhaawac daran intaa dabadeedna waxay isku dayeen inay toosiyaan Ivo laakiin ugu dambeyntii wuu dhintay asaga inkastoo hadda asaga uu u barooranaya Bahrainna si lama filaana Rio waxay u maqashay cod ka imaanaya bannaanka meeshaan arrintaana rajo ayay gelisay ayada intaa kadibna waxay xirtay albaabka dambe ee meeshaan si ay uga hortagto heerkulka sii kordhaya iyo qiiqa meeshaan soo galaya isla markiina waxay bilaabeen inay qodaan hareeraha meeshaan intaa dabadeedna god kale ayay meesha ka heleen isla markiina Bahrain waxay ka codsatay inuu ka tago meydka saaxiibkii uu ayada raaco intaa kadibna ninka godka ayuu aaday halka Riona ay soo saartay qalabkii neefsashada ee Ivo intaysan bixin ka hor markuu dhinaca kala gaarana Bahrain wuxuu u soo jeestay si uu u soo jiido gabadhan markay labadooda horay ugu socdeen meeshaana si bareera waxay u galeen godka markay gudaha u galeenna cabur daran ayay dareemeen ayaga meeshaana gabadhu markay taleefankeeda soo saartay oo ay nalka shiday waxay aragtay Bahrain oo miir daboolan maadaama uu hadda xaalad xun ku jirana qalabkii neefsashada ayay si degdeg ugu xirtay asaga sidoo kalena hadda waxay raadinaysay meel ay uga bixi karaan goobtan xitaana hadday shaqo adag qabatay weli waxba ma aysan u muuqan ayada intaa kadibna Bahrain ayay kicisay waxayna u sheegtay inaysan wax rajaa jirin hadda sidaa darteedna waa inaan isdilnaa annaga muddo kadibna waxa aad ugu sii adkaaday neefsashada sababtoo oksijiintii meeshaan ayaa ku sii yaraanaysay isla markiina Rio iyo Bahrain waxay wadaageen qalabka neefsashada ayagoo rajaynaya inay sii noolaadaan ilaa samatabixiyayaashu ay meeshaan ugu imaanayaan laakiin waqtigu wuu ku sii kordhayay neefsashaduna way ku sii adkaanaysay rajadoodana marba marka ka dambaysa aad bay u sii xumaanaysay ugu dambeyntiina Bahrain wuxuu ku guuleystay inuu qalabka qaato asaga halka gabadhuna ay ku dhawaatay inay dhimato balse wax badan wuu sii isticmaali waayay oksijiinta sababtoo ah wuu miir beelay wax yar kadibna nal ayaa qabtay asaga nalkaana wuxuu ahaa kan samatabixiyayaasha goobtaanna marka hore waxay ka heleen Bahrain isla markiina diyaarad ayay saareen ayagoo oksijiin u xiraaya sidoo kalena wax yar kadib goobta waxay ka heleen Rio marka horena kooxdan waxay u maleynayeen inay dhimatay gabadhan laakiin gargaar badan kadib waxay dib u heshay miirkeeda filimkeennana wuxuu ku soo dhammaanayaa labadoodii oo hadda wada badbaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna like saar sidoo kalena janalkeenna ku soo biro subscribe waa ku mahadsantahay la joogistaada